Maanta muuqaalkeenu waa muuqaal la yaab leh oo cabsi badan. Waa sawiraanta sida kadiska loo qaaday ee lagu arkay makhluuqaadka la yaabka leh. Haddaba inaguma sheegi karno inay sawiraantanu run yihiin iyo inay been yihiin, balse Ilaahay baa og. Waa sida warbaahintu u soo daabacday. Sawirkan ayaa la qaaday waqti hore. Qoyskan ayaa u soo guuray gurigooda cusub oo ku yaala gobolka Texas, waana gobol ku yaala koonfurta dhexe dalka Mareykanka. Qoyskan ayaa u dabaaldegayay gurigooda cusub, waxayna iska qaadeen sawir. Markii sawirka la fiiriyay, waxaa lagu arkay wax la yaab leh. Waxaana lagu arkay qof ka soo laalaada qolka dhexdiisa. Haddaba sawirkan ayaa loo waayay wax fasiraad ah. Inaguma sheegi karno sawirkan inuu yahay run iyo inuu yahay been, balse waxaa soo daabacday qaar ka mid ah warbaahinta ka shaqeysa dalka Mareykanka. Muuqaalkan ayaa noqday mid caan ah oo malaayiin qof ay daawadeen. Waxaana muuqaalka laga dhex arkayay haweeney kursi ku fadhida oo dhammaan kuraasta agteeda taala ay daadanayso, iyaduna ay dhulka ku dhacayso sida dhul gariir oo kale. Dadku aad ayay ula yaabeen markay daawadeen muuqaalkan, oo run ayay moodeen. Haddaba muuqaalkaas wuxuu ahaa muuqaal ganacsi oo loogu talagalay filim Maleesiyaan ah oo ciwaankiisu ahaa Ben Gunna. Sawirkan waxaa la qaaday sanadkii 1987. Goobtan waa saldhig military oo ku yaala Ingiriiska. Haweeneydan ku muuqata ayaa sawirkan iska qaaday, waxayna sheegtay markii ay sawirka iska qaadaysay inay keligeed ahayd. Haddaba markay sawirka fiirisay, waxay aragtay qof dhinac fadhiya. Arrintan ayaa la yaab la noqotay. Haddaba sawirkan ma sheegi karno inuu run yahay iyo inuu been yahay, balse waa sida warbaahintu u soo daabacday. Ilmahan yar ayaa laga qaaday sawir. Markii sawirka la fiiriyay, waxaa lagu arkay makhluuq la yaab leh oo ilmaha yar dabadiisa taagan ama gadaashiisa taagan. Runtii dadka la yaab ayaa la noqotay, balse sawirkan ma sheegi karno inuu run yahay iyo inuu been yahay, balse waa sida warbaahintu u soo daabacday. Sawirkan waxaa qaaday haweeney. Waxay tiri, markaan sawirkan qaadayay, moobilkayga kamaradiisa ayaan saaray dalool ku yaala albaabka gurigayga, balse markaan sawirka fiiriyay, waxaan arkay qofkan la yaabka leh ee gurigayga hortaagan. Haddaba ma sheegi karno sawirkan inuu run yahay iyo inuu been yahay, balse waa sida warbaahintu u soo daabacday. Asxaabtayda qaaliga, muuqaalkeeni maanta intaa ayuu inagu joogaa. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh. Waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.